kulanti wanaagsan daawadayaal iyo saaxiibayaal meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo idinkaga imanaya stuudiyaha Somali Canadian TV ee galbeedka magaalada Toronto ee dalkani Canada. daawadayaasha qadarinta iyo qiimaha mudan lahow anagoo aad idinkaga mahadcelinayna sida wanaagsan ee barnaamijkan ula socotaan iyo waliba fikradaha aad ka dhibataan intaba. magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Xasan. barnaamijka maanta ayaa wuxuu ku saabsan yahay eedayn aad u ballaaran oo gebi ahaanba walaac ka dhalisay dalkani Canada oo wadankani Canada uga yimid xuquuqul aadanaha hay'adda qaabilsan ee qaramada midoobay. dalkani Canada wuxuu ka mid yahay dalalka xagga dhaqaalaha horay ugu maray ee warshadaysan ee dad shaqaale ah oo ku meel gaar ka keensada wadamada dibadda oo ay heshiis la galeen in shaqaalo loogu soo diro xilliga loo baahdo isla markaana shaqadu markay dhammaato ay wadamadii ay ka yimaadeen dib ugu laabtaan. xuuraansi aanu soo samaynay ayaa waxaanu ku ogaanay in dalka Mexico warqadda shaqada ku meel gaarka ah ee ogolaanshaha ah ay haystaan dad ka badan 45,000 oo qof oo xilliga loo baahdo looga yeeri karo dalkani Canada si ay uga qabtaan shaqooyin ku meel gaara. shaqooyinkaasu marka ay dhammaadaan ay dib ugu laabtaan dalkoodii. dalka India ayaa iyagana waxa warqadahaas ogolaanshaha haysta 26,495 qof oo xilliga loo baahdo oo shaqo ahaan ku meel gaara looga baahdo dalkani Canada loo yeeri karo. Philippines ayaa ka mid ah wadamada iyaguna heshiiska la galay dalkani Canada in ay u soo diraan shaqaale ku meel gaar ah xilliga loo baahdo. waxaana warqadda ogolaanshaha shaqooyinka ku meel gaarka ah dalka Philippines haysta 20,635 qof oo xilliga loo baahdo iman kara dalkani Canada si ay uga qabtaan shaqooyin ku meel gaar ah. wadanka Guatemala ayaa isna waxa warqadaas shaqooyinka ku meel gaarka ah loogu ogolaaday dad dhan 20,000 oo qof oo xilliga loo baahdo iman kara. wadanka Jamaica ayaa isna wuxuu ka mid yahay wadamada u soo diray shaqaale ku meel gaar dalkani Canada. haddaba dadkaasoo intooda badan qabta shaqooyinka ay ka midka yihiin beeraha xilliga ay soo go'aan ee la gurayo iyo weliba makhaayadaha cuntooyinka fudud sameeya, dhismayaasha iyo weliba shaqooyinka kale ee aan laga heli karin dadkan reer Canada in ay ogolaadaan in ay ka shaqeeyaan. dadkaas oo intooda badan ku nool beeraha iyo meelaha duurka ah ayaa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul aadanaha waxay aad uga dayrisay nolosha ay ku nool yihiin dadkaasi iyo weliba daryeel la'aan ba'an oo ka soo yeedhay. Tomeya Obakata oo ka socday qaramada midoobay oo booqday dalkani Canada isla markaana aad ugu kurgalay xaaladda shaqaalaha ku meel gaarka ah ee dalkani Canada ayaa wuxuu ku tilmaamay in xaaladda shaqaalahaasu ay ku sugan yihiin ay tahay adoonsi dahsoon. hadalkan ka soo baxay qaramada midoobay ayaa u cuntami waayay dowladda Canada waxayna noqotay foolxumo aad u ballaaran oo wajiga laga saaray dalkani Canada. sidoo kalena sanadkii 2023 ayaa gobolkan Ontario waxaa la sheegay shaqaalaha Jamaica ka yimaada ee ku meel gaarkii inay yihiin kuwo ku nool xaalad aad u xun oo ka baxsan xuquuqul aadanaha. dalkan Canada ayaa shaqaalaha yimaada waxaa mas'uuliyadeeda iskale dowladda dhexe ee dalkani. isla markaana waxay dowladdu xilligani bilowday baaritaano iyo weliba ballanqaadyo aad u ballaaran oo ay wax kaga bedelayso xaaladda shaqaalaha ku meel gaarka ah ee dalkani Canada yimaada. wuxuu ku sheegay ninkaasi ka socday qaramada midoobay ee Tomeya Obakato in dadku ay ku nool yihiin baqdin aad u ballaaran oo mararka qaarkoodna ayna suurtagelinba lacagtii qofka ay u shaqaynayaan uu bixiyay in ayna soo gaarin oo meel dhexe lagu gamcagamceeyo iyadoo taana macnaheedu yahay hay'ado ayaa u qaabilsan
keenidda dadkan shaqaalaha ku-meel gaarka ah. sidoo kalena wuxuu ninkaasu sheegay oo kale in dadka shaqaalaha ah ee ku-meel gaar ahaan dalkani Canada u jooga ayna caban karin iyagoo aad uga baqaya haddii ay cawdaan in lagala noqonayo ogolaanshaha warqadda shaqada ku-meel gaarka ah oo isla markaana dib loogu celinayo dalkii ay ka yimaadeen. hay-adda u dooda xuquuqda dadka shaqaalaha ah ee ku-meel gaarka ee dalkan yimaada ninka madaxda ka ah oo la yiraahdo Sayid Xasan ayaa isna wuxuu aad ugu dheeraaday in ay dhibaatooyin ballaaran la kulmaan dadka shaqaalaha ah ee ku-meel gaarka ah ee yimaada dalkani Canada. Canada oo ka mid ah wadamada lagu tilmaamo kuwa aad uga walwala xuquuqul aadanaha isla markaana qaabila qaxooti fara badan oo dalalkoodii uga soo cararay arrimo dagaalo xuquuqul aadanaha iyo weliba arrimo ku saabsan jinsiga ayaa waxay tanu ku noqonaysaa arrin aad u ballaaran oo gebi ahaanba ka yaabisay shacab weynaha dalkani Canada. barnaamijkani daawadayaal iyo saaxiibayaalba wuxuu idinkaga imanayay stuudiyaha Somali Canadian TV ee galbeedka magaalada Toronto ee dalkani Canada. anigoo Maxamed Cabdullaahi Xasan ayaa idin soo saaray oo idin la socodsiiyay. intaas iyo nabadgelyo.